halkani waqoonaha TV ku soo dhawaada barnaamij wareedkana xilligan qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah al-shabaab oo deegaanka Basra ku dishay taliyii qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir Farxaan Maxamuud Aadan iyo sidoo kale geerida sargaalkaasi oo warar kala duwan ka soo baxaya iyo sidoo kale weerarka lagu qaaday ciidamada dawladda ee halkaasi ku sugnaa iyo taliyaha Nisamahad Maxamed Salaad oo ku sugan degmada Balcad wararkii ugu dambeeyay xogaha laga helay saaxiibayaal idin soo gudbin doona wararka kalena waxa kamid ah 12 qof oo lagu dilay deegaanka Garile oo dhaxeeya degmooyinka Baardheere iyo Ceel Waaqi gobolka Gado iyo sidoo kale ceel laga qoday halkaasi oo al-shabaab ay gabi ahaanba burburiyeen qodobadaasi kuwa kale barnaamijkan ku faaqidi doona balse aan ku bilaabo saaxiibayaal deegaanka Basra oo hoostaga degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ka dhacay weerar loo adeegsaday qaraxyo iyo miinooyin iyo sidoo kale sida la sheegay ay soo qaadeen dagaalamayaasha al-shabaab weerarkaasi waxa la soo taminayaa inuu ku geeriyooday taliyihii qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir Farxaan Maxamuud Aadan Farxaan Qaroole oo dagaalka isagu qayb ka ahaa wararka kale waxay tibaaxayaan in Farxaan Maxamuud Aadan gaarigiisii loogu xiray walxaha qaraxa sidoo kalena walkaasi kula qaraxay wararka qaarna waxay soo tabinayaan laga helayo degmada Balcad ay sheegayaan daawadayaal inuu halkaasi ay ku geeriyoodeen askar la socotay taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir Farxaan Maxamuud Aadan waxa uu ahaa sargaal ka tirsan saraakiisha booliska kuwada ugu firfircoon iyadoo maalmihii dambaba uu kamid ah howlgallada ee ka dhanka al-shabaab ee ka soconayay duleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe degmada Balcad waxa ku sugan madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaabe iyo sidoo kale taliyaha nabad sugidda sirdoonka qaranka Mahad Maxamed Salaad oo iyagu halkaasi ka abaabulaya dagaalada ka dhanka al-shabaab oo looga sifeynayo deegaanada ku dhow caasimadda Soomaaliya oo al-shabaab maalmihii dambaba ee sidoo kalena ay ku qaadayeen canshuurta halkaasina u ahayd goob ay dadku sidoo kalena u tagaan si ay dacwadahooda u geeyaan dhimashada Farxaan Qaroole ayaa waxa sidoo kalena aad u qabsaday baraha bulshada iyagoo ay ka tacsiyeen siyaasiyiin badan oo Soomaaliya oo isugu jira madax hore oo dalkan xilal ka soo qabatay kuwa hadda jooga sidoo kalena hay'adda NISO waxa ay war ka soo saartay dhimashada taliyaha booliska gobolka Banaadir Farxaan Maxamuud Aadan iyadoo sheegtay inuu ahaa sargaal muhiim ah sidoo kalena uu adeegayay dawladdiisa iyo dadkiisa waxay sidoo kale sheegeen in al-shabaab iyagu qudhoodu ay jab weyn gaarsiiyeen oo ay ka dileen saraakiil muhiim ah oo la sheegay in iyagu ay qariyeen midadkooda sidoo kalena NISO maalmihii u dambeeyay waxay sameynayeen howlgallo qorsheysan oo ay ka sameynayeen gudaha caasimadda Soomaaliya magaalada Muqdisho iyo sidoo kale deegaanada ku dhow ee magaalada Muqdisho dhanka kale haddii aynu eegno wararka naga soo gaaraya gobolka Gado deegaan lagu magacaabo Garile oo u dhaxeeya degmooyinka Baardheere iyo Ceel Waaqi ee gobolka Gado ayaa waxa la soo tabinayaa in halkaasi lagu dilay dad gaaraya 12 qof oo xilligaasi ku sugnaa ceel biyood oo Gariiga oo laga qodayo deegaankaasi sidoo kalena al-shabaab ay ceelkaasi burburiyeen 12 qofna ay halkaasi ku dileen lamaha amnigu weli kama hadlin arintani balse dad halkaasi jooga oo muhiim ah ayaa waxay noo xaqiijiyeen in meydadka halkaasi laga soo qaaday 12 qof sidoo kalena al-shabaab ay ku burburiyeen ceelkii Gariiga ee halkaasi laga qodayay wararku qaar waxay tibaaxayaan in al-shabaab markii hore ay degni u soo direen dadka ceelka halkaasi ka qodayay iyagoo u sheegay in ay bataatanba joojiyaan ceelka laga qodayo deegaankaasi lagu magacaabo Garile oo u dhaxeeya degmooyinka Baardheere iyo Ceel Waaqi ee gobolka Gado balse sida la sheegay ay iska indhatireen welibana ay dhagaa ka fureysteen iyagoo ku indhadeegay in ay ceelkoodii sii qotaan lamaha amniga gobolka Gado ayaa tagay goobta oo falkaani ka dhacay iyagoo qudhooda al-shabaab ay isaga baxsadeen sidoo kalena la sheegay in meedadka dadkii halkaasi lagu laayay ee gaaraya 12 qof laga soo qaaday meedadkoodina loo soo qaaday degmada Ceel Waaqi ee gobolka Gado al-shabaab ayaa maalmihii la soo dhaafaba waxay beegsanayeen haldoorada muhiimka iyadoo isbuuca gudihiisa dilay nabadoon caan ka ahaa gobolka Hiiraan iyo guud ahaan Soomaaliya oo lagu magacaabayo nabadoon Cilmi Hagar Guure oo ku geeriyooday dagaal ka dhacay deegaan u dhow degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan oo isagu maalmahanba gobolkaasi ka soconayay howlgallo ka dhan al-shabaab oo iska kaashanaya ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka oo la magac baxay Macaawisley dhanka kale haddii aynu eegno gobolka Galgaduud waxa isaguna ka soconaya howlgallo ka dhan al-shabaab oo ay sameynayaan dadka deegaanka iyagoo halkaasi ay ku sugan yihiin taliyaha ciidanka xoogga Soomaaliya
Jenaraal Odawa Yuusuf Raage iyo sidoo kale wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabduqaadir Maxamed Nuur Jaamac iyo sidoo kale xildhibaano ka tirsan iyo wasiiro kamid ah xukuumadda Soomaaliya oo garab siinaya dadka deegaanka iyo ciidamada dawladda oo dagaalka kula jira al-shabaab oo iyagu jiida hore dagaalada ka hagaya.